waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo maaragtay maanta yana waqtigani aad iyo aad oo maaragtay saaxada Soomaalida u dabaalanaya. qodobka kale waxa weeyaan qodobka gobolka Gado iyo ciidamada Soomaalida jooga iyo dawlad goboleedka Jubbaland ninka haysta oo yiri ha laga saaro ciidamada Soomaaliyeed Gado saa u yimaadaan ciidamo Kenyan waxa weeyaan qodobkaasi waxaan horta aad ugu faraxsanahay inay ummadii reer Gado ay si fiican ugu hor yimaadeen oo diidan yihiin qodobka ah in ciidamada laga kaxeeyo oo ciidamada Kenyanka yimaadaan maxaa yeelay de wadan ciidankiisii leeyahay mayuuna joogin ciidan ajnabina ha joogo waxyaabaha ugu cajaa'ib badan bay ka mid tahay waxa loo yahay Kenyanku carada ay u qabaan iyo ciirka ay u qabaan Soomaalidu inuu aad iyo aad u xoog badan yahay oo ay doonayso gobolada Jubbooyinka la raado in noqdaan kuwa raacsan had iyo jeer Kenya oo ayadu yana dimniyan ama maarataanay si gaar ah u xukumato ay doonayso talabaad waxa jira in gobolada dib badan ay ku hayso dawladda Kenya oo ay ka mid yihiin in ay darbi ka sameynayaan xuduudda agteeda oo dhinaca waliba Soomaalida ay soo galayaan oo inta soo jeer la isku leeyahay Buuraxaawi iyo hareeraheeda iyo dhulkaas oo darbigaas iyo xaydaamka laga dhisay halkaana ay ummaddu dhibaato badan ku qabto sidaa darteed ummadda Soomaalida khaas ahaan madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumadda la jirta iyo baarlamaanka iyo cidii kasta ee ay khusayso arinta Soomaaliya waxaan ugu dardaarmayaa gobolkaas oo kaliya ma ahayna in dhammaan wadanka Soomaalida laga saaro ciidamada Kenyanka iyo cidii dabada ka wadaba la fogeeyo ciidamada maarta Kenya in laga saaro wadanka cidii Kenyan rabtaana Kenya iska tagto oo Nairobi iska fadhiisato oo waxa la wadaagta Kenyanka taasi waa dardaaran iyo talayga tahay aniga mana dhici karto ama maarataanay macquul ma noqon karto in ciidamadii Soomaalida ee ummadda sharafta u soo celiyay ee xoreeyay ee diyaaradii garaacay ka fogeeyay ee darbigii laga dhistay ka fogeeyay ee dulmigii ka dulqaaday in maanta la ka baxaan oo Axmed Madoobe saa ku dacwiyo waxaan aqbali kareyna ma Soomaalina aqbali mayso saa aniga la tahay qodobka taasaan leeyahay qodob kale waa qodob aad iyo aad u xasaasi ah saan ugu dareensanahay waa qodob aan ka dhageystay idaacadaha wafdi Mareykan oo yimideen aan ka dhageysanayay waxa weeyaan Mareykanka oo raba ciidan Soomaali ah oo la danab oo isaga hoos yimaada in gaar laga dhigo oo Mareykanka ay amar ka qaataan oo aanay Soomaalida dawladdu xukumin ciidankaasi oo waliba ay ku dhawaaqeen inay Turkiga sanka ka galaan waxa hadalka sidoo ah baan u sheegayaa ciidanka haddana la dhaahdo ee Mareykanka uu sameysanayo oo la rabo inay Turkiga sanka ka galaan bal kelmadda u fiirsada sanka ka galaan maxaa keenay ciidan Soomaaliyeed oo Soomaali ah inuu sanka ka galo Turkiga oo ah wadankii muslimka ah ee muslimnimo inoogu soo gurmaday ee muslimnimo inoogu gacan qabtay ee dhaqaalihiina maanta cirka mariyay ee ciidamada inta badan inoo tababaray in la raahdo ciidan Soomaaliyeed loo sameeyo oo sanka ka galiya maartaanay sanka ka gala Turkiga hala sameeyo ciidankaas wafdiga hadda soo usbuucan imka naga dhamaad usbuucan naga tagay wafdiga yimiday oo ay ka mid yihiin ciidamo maartaanay ciidamada Afrika Mareykanka u jooga madaxdooda generaaladooda waxa soo dhan halka ay maartaanay marka waxa weeyaan anu waxaan u arkayaa arintaas in ay imaaraadku ku dhex jiraan ay ka dhaxlayaan Mareykanka waana si ay tahay
lacagta Mareykanka loo dhiibayo ee imaaraadku bixinayo ee ciidanka lagu qorayo ee magaca Mareykanka lagu qorayo ogaada hadda imaaraadka laftiisu Soomaalidu waxayna fahamsaneen imaaraadkan wajaqay ee maanta maartay Suuriya baabiyay ee maanta Liibiya baabiyay ee Soomaaliya isku dayay inuu baabiyo ee Puntland xoog ku haysta ee Somaliland xoog ku haysta ee imaaraadka noocaas wuxuu isticmaalayaa ciidan Mareykan nin Mareykan hogaaminayo oo la dhaahdo maartay Eric Prince la dhaahdo ninka Eric Prince la dhaahdo oo ah nin generaal ah oo admiral badda ahaan jiray oo markabkiisii lagu gubay cadan samaartay ana 2000 yana maartay ciidanka ninkii markabka wadan jiray oo Blackwater shirkad la dhaahdo sumcad xun samaystay oo caloosho shaqaystaas ka soo qortay Latin America iyo New Zealand iyo Australia oo ciidamadaas lagu laayay marka ummadaha muslimka ah sida misalan Yemen oo kale waa dartiin maanta yana sirad soo dara waxa qaatay yana maartaana imaaraad bal leeyahay laakiin ciidamo caloosho shaqaystayaal oo Latin America laga keenay ayaa soo dara haysta boosaasana way qabsanayaan barbarna way qabsan doonaan waxa weeyaan Soomaaliya ama ha fahamto ama ay fahmin imaaraad ciidan leh ma jiro waayo dadkooduba maaha wacan toobo wadanka waxa ku nool waa ajnabi hindi iyo maarto badan olada la Iiraaniinta laakiin ciidanka ay lacagtooda ku soo kireysanayaan ee ninka Mareykanka uga wakiil yahay ee shirkadda la Blackwater ee sumcadda xun leh ee maartaana Ciraaq baabiisay ee wadamada soo baabiisay ciidanka Soomaaliyeedna in Blackwater la geliyo oo calooshooda shaqaystayaal noqdaan magaca Mareykanka lagu qoro ayay doonayaan imaaraadku hadda waxaan sheegayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaalida iyo siyaasiyiinta Soomaalida ee iyagu oo ku weerarsan maartaana kuraastooda ku weerarsan waxaan u sheegayaa in ay ku baraarugaan arinta inay ku baraarugaan ayaan u sheegayaa maxaa yeelay waxa weeyaan arinta ay nimankaasi doonayaan waxa weeyaan in ay Soomaaliya korkii meel albaabka ka soo galay ayna waayeen inay doonayaan inay ku qabsadaan magaca Mareykanka oo ciidan Soomaaliyeed oo Mareykanka raacsan loo qoro oo dan la yiraahdo dabeedna ay markaa waxay doonaan ku sameeyaan Soomaaliya arinta waa in maarataanay si fiiro dheer looga fiirsadaa aqbali kari mayno ama Soomaaliba aqbali mayso ciidan Soomaali ah oo calooshaystayaal ah oo imaaraadku magaca Mareykanka ku wataan Blackwater bay ugu wataan inay wadankeena iyo maarta Turkiga caawinaya ay colaad ku beeraan wax la aqbali karayaa ma taana Soomaaliya ogaada marka America waa gumaysi xoog badan hadduu isagu ina gumaysanay waxba ma ahaateen hadduu imaaraadkii magaca Mareykanka inuu gumaysta ka warrama oo ciidan ku qorta ka warrama oo Blackwater oo maartaanay shirkadda qurunka ah ugu xun adduunyada shirkad soo marta ugu xun ee wadan kastaba aafaysay inay wadankeena xamar ay ciidanka ku dhex yeelato oo baldoogla ku dhex yeelato oo Kismaayo ku yeelato oo maartay meel walba ku yeelato bal Soomaaliya xagee tagi taasina waa qodobka saddexaad oo raba inaan ka hadlo waxa weeyaan doorashooyinka ummadda Soomaaliyeed rabtaay waa noocee doorashooyinka dabcan doorasho marka la yiraahdo doorasho cid wax doorataay waa shacbi ma aha macnuhu in maartay lacag imaaraadka laga keenay ama maartay Kenya loo dhiibay oo Kenyaankuna bar soo iibsadaan oo xamar keenaan baarlamaan ahaan oo imaaraadkuna bar soo iibsadaan oo ay xamar keenaan oo dawladaha kale maartay Sacuudiga qayb soo iibsado oo maartay keenaan yaana doorashadaas waxa doorasho lama yiraahdo wax la aqbalay karayo oo ummadda u cuntami karayna ma ummadda Soomaaliyeed 30 sanadood waxay sugaysay inay doortaan baarlamaan ayagu maartay ku doortaan foodkooda ay ku doortaan oo ikhtiyaarkooda doortaan bay sugayeen ummaddan maartay Soomaaliyeed udan ma aha yani ummadda Soomaaliyeed udan ma aha in markastaba dad la soo iibiyay la dul dhigo oo marka kursigooda uu ku dagaalamaya shacbiga Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in iyagu wax doortaan foodkaasi ha yimaado sanad gudihii ha yimaado 2 sano gudihii ha yimaado 3 sano gudihii anagu iska hadli ma siyaasiyiinta wareeray ee kursiga isku leynaya
كل نيكي كرسي جوجون كتاعن أنا كهذا المايو لكن شعب وحي أو ميهن إن يوقف كيدونيان صوت دورتان وأي مثلاً سيدي لو دورين جري برجي عمارة تاني آذن عد الله نحرسته عبد الرشيد علي شرمارك وقت كيسي دينتي الدمر كعام بابا إنها يستبع مركا وحوي waxay maanta shacabka Soomaalidu doonayaan walow waqtiga doontaan noqotay in loo gaarsiiyo waqti ayagu footeeyaan oo ay soo doortaan baarlamaan ayagu leeyihiin taasaan ku dardaarmaya oo wax maarta kolba imika Kenyaanki waxay leeyihiin already way noo liiskaraysiin dadka noogu soo baxaya foodka ee isticmaali doonay way odayaashii soo dooray laftoodiba gacanta lagu hayaa taasina ma wadayso wadanka taasaan leeyahay waa ina dawladdan loo kordhiyaa iyo si kale loo xalliyaaba waa in foodka dadka loo daayaa waayahay waxaan kaloon ka hadlayaa waxa mucaaradada la yiraahdo iyo waxa wadaniyada la yiraahdo halka iska imanayaan mal joogay mucaarado tan maanta Soomaali haysataay waa mucaarado dilaal ah oo dalka iibinaysa oo ummadda iibinaysa oo aan ka naxaynin dhibaatada ummadan haysata iyo cadowga ilkaha ku soo kala haya ee cunaya aan dan kala hayn laakiin ay jeebashooda buuxsadaan aqalana ka dhistaan wadamada dibadda oo dibadna hadhow u cararaan Turkiga iyo Imaaraadka iyo Mareykan iyo meelaha wax ka dhistaan dadka sida doonayay Soomaalina maaha mucaaradna maaha waa calooshooda oo shaqaystayaal iyo dantooda oo shaqaystayaal baa la dhahdaa laakiin mucaaradku markuu mucaarad yahay wuxuu ka shaqeeyaa danta dalkiisa dawladda jirta ayuu wuxuu ku mucaaradaa halkaasi sax ma ahina saa u toosi ummadda saa u maamulinay saa u maamula oo maartay mucaaradnimadu waa saxid hadba wixii ummadan u dana lagu saxo ma siyaasadda oo lagu soo kordhiyo oo ninka madaxweynaha ah mucaaradku waa inuu wax u taraa oo baarlamaanku ay maartaan ay toosiyaan wax oo mucaaradku dhinac kasta haduu ka imanayo waa inuu mar kasta danta dadka iyo dalka eeganayo dadka inay ka taliyaan ayaa la doonayaa laakiin mucaarado يعني جبجدوا أما أنا وحي عن لهيد يا وحي دسان لهيد يا وحي دقن لهيد رادينيسا بل إمك إمارات كل مارتي دولة قبل ويران اللي عقب بوحيان جوابك إن أولي يجيب كوب شاعر شن يتهم المليون لورد ديبو محونك أصلا حارسان ومط وحرق يوحد لا يقصد يكتب تورنما معارضة مقارنة تاس لكن معارض هو إنه هذا معارضة بناء على دسة يسوح توح دسة يس أيال الربا oo madaxweynaha kaalmo ah oo ra'iisul wasaaraha kaalmo ah oo wasiirada kaalmo ah oo wadanka saxaysa ayaa la rabaa taasna waa mucaarada iyo wadaninimada waxaan ku darayaa qodob kale oo ah khusaya Soomaaliland waxa weyn Soomaaliland waxaan dhageysanay xalay nin ama wasiir wuxuu garmanaya Chinese oo Soomaaliland si adag wax ku sheegay waxa la yaab laa inuu joornaalka iyo ninkaasi maartay la hadlayay ay soo qaateen mahmaa Soomaaliyeed oo oranaysa ama buur ahow ama buur ku tiirsanow ninkaasi wuxuu sheegay oo lahaa Soomaaliland buurna ma tihid buurna kuma tiirsanid waa maxay macnaheedu buur ma tihido dawlad weyn oo xoog badan la maartay la aqoonsan ma tihid talabaad Taiwan oo ku tiirsateena buur ma aha waa gobol yaro ama jasiirad yaro Chinese oo radhow ila shareeb ninkaas warkii uu dhameeyay kelmadda laakiin ugu khatarsanada ku hadlay waxa ahayd Soomaaliland waxaan uga digaynaa inay quwadaha caalamka iskaga kor keento wadankeeda iyo badeeda waa in aad loo fahmaa quwadaha wadanka caalamka iskaga hor keenna wadankiina de marka imka maartay Chinese ku sameeyaan dolatus badacas ee barbara ku toosan iyo sayla ee Mareykanka ka daba yimaado halka madax la isku daraya marka yaa keenay dhibaatadaas maxaa inaga aan wadankaygu nagu filan yahay waa noo barwaaqo cidna wax kuma baahnin maxaa Chinese iyo Taiwan iyo meel lagu qabsaday iyo Yuhuud iyo maxay galay نحن اللي waxa ka maqlay anagu de Yuhuudan doonayna inaan maartay etraafto oo duuda ku beerno waa duqsi dhacayo qabriga dul yaala goormu Yuhuud carraya waa muslimiin oo waa Soomaali waxa weeye waxaan leeyahay yaana diinteenniyeen uga bixin iyo dadnimadeennii waxa etraaf la dhahday iyo waxbaan doonayay inaan uga bixin
waxa kale oo ku daraya waxa la sheegay iskuulo hadda abaarsan meel la dhaahday iyo Hargeysa gudaheeda iyo lagu dhigayo diinta Kiristaanka xalay waxban maqlayaba kaniisad baa laga dhisay yaa la lahaa meel abaarsan iskuulkii abaarsi waxa la sheegay ma garanayo laakiin goormaynu war Soomaaliland waxaan sheegayaa Soomaaliland waxaan sheegayaa waalidka iyo ardayda waxaan sheegayaa haddaad gaalowdaan ilaahay idin ma baahno in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum haddaad gaalowdaan ilaahay qani bidika yahay waxa ku fali maayo bal maanta ka wada dareero Soomaaliland ka wada dareertay islaamka iyo diinta ka dareerto in ilaahay wuxuu waayo wasla yaabo maartay wadan nagu filan oo barwaaqa oo islaam oo ilaahay nagu gargaarnaysanaa gaalnimada naga daaya